maxkamadda degmada Hamar ee dalka Norway ayaa 19 sano oo xabsi ah iyo in uu bixiyo magdhow gaarayo ilaa iyo 1,100,000 oo karoonka Norwejiga ah ku xukuntay nin 30 jir ah oo lagu helay in uu si joogto ah u kufsanayay laba gabdhood oo ay dhashay xaaskiisa kuwa oo ahaa ilmo yar oo saqiir ah. 19 sano ee xabsiga ee lagu xukumay ninkan ayaa lagu soo waramayaa in ay maxkamadda racfaanka ku heshay dambiyadan lagu soo oogay oo ah in muddo 9 sano ah uu kufsi joogto ah guriga dhexdiisa ugu geysanayay saqiiradan yaryar ee labada gabdhood ah ee ay dhashay xaaskiisa. waxaana lagu soo waramayaa ninkan in uu isku dayay in uu inkiro dambigan lagu soo oogay, ha yeeshee maxkamadda oo daliishanaysa cadeymaha iyo dhambaalada la horkeenay ayaa sheegtay in ay ninkan inkiraadiisa aysan waxba ka qaadanaynin. waxaana lagu soo waramayaa in qisadan labada gabdhood ee yaryar ee kufsiga uu ugu geysanayay guriga dhexdiisa ay soo dilaacday markii 2023 labada gabdhood midda yar ay si kama ah ugu sheegtay gabdha asxaabteeda ah oo ay iskuulka wada dhiganayeen. waxaana lagu soo waramayaa markaa wixii ka dambeeyay in dabagal iyo sidoo kale baaritaan lagu bilaabay, taa oo ugu dambeyn lagu cadeeyay ninkan in labadan gabdhood ee ilmaha ah iyaga oo saqiiro ah muddo 9 sanadood ahna uu ku wada kufsi iyo jirdil iyo dhibaateyn. waxa ayna maxkamaddu sheegtay in ay ku caddahay dambiga ninkan lagu soo oogay, taa oo sababtay in ay ku xukunto xukun adag oo ah 19 sano oo xabsi ah. waxaana lagu xukumay ninkan labada gabdhood ee yaryar ee uu muddada 9 sano ah kufsiga ku hayay uu midda weyn siiyo adduun lacageed oo gaarayo 700,000 oo karoonka Norwejiga ah, halka midda yarna loo xukumay in uu siiyo 400,000 oo karoonka Norwejiga ah oo magdhow ah. labada dhibane ayaa loo kala hormarsiinayaa sida ay u kala da'wo yihiin. qareenka u doodaya ninkan oo lagu magacaabo Martin Lindholm ayaa sheegay in ay racfaan ka qaadan doonaan xukunkan adag ee 19 sano ee lagu xukumay. weli lagama hayo war hooyada dhashay labadan gabdhood ee saqiirada ah kaa oo uu ninkeeda 30 jirka ah uu muddo 9 sano ah kufsi ku hayay iyaga oo ku wada sugan hal guri. hay-adaha cadaaladda iyo booliskuna ma cadaynin in hooyadu wax ka ogeyd iyo inaysan ka ogeyn, iyo in ay gabdhaha hooyadood wax u sheegeen iyo inaysan u sheegin, iyadoo maxkamadda racfaankana ay ku riday xukunkan 19 sano ah iyo in uu bixiyo adduun lacageed oo gaarayo 1,100,000 oo karoonka Norwejiga ah oo uu magdhow ahaan u siinayo gabdhahan oo hadda lagu soo waramayo in ay ku dhow yihiin da'da qaangaarka. halka warka kiisa ugu door karoon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.